maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 27aad ayaa maanta xukun dil toogasho ah waxay ku riday Cabdullaahi Xuseen Duurdeg oo horey u dilay Cabdi Abuukar Cismaan oo ka tirsanaa ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle. Xukunka maxkamadda waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad Gaashaale Maxamed Amiin Aadan Cabdulle. Bismillah. Ujeed xukun maxkamadeed maalinta ay taariikhdu ahayd 12 bisha 7 2022 maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27 waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysane Cabdullaahi Xuseen Duurgale Fiidow 46 jir ah ina xaawo cali Soomayle ku dhashay degan Jowhar kana tirsan ciidanka booliska dowlad goboleedka Hirshabelle kaasoo xafiiska xiraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in uu dil bareer ah u geystay marxuum Cabdi Abuukar Cismaan taariikhdu marka ay ahayd 17 bishii 3 2022 dilkaas oo ka dhacay degmada Jowhar gaar ahaan rugta booliska hanti wadaag. dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay eedii uu soo gudbiyay xeeraalyaha ciidamada qalabka sida oo ku xusneyd aayadda 178 suuratu al-Baqara qodobada 195 bis xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay aragtay qiraalka eedeysana Cabdullaahi Xuseen Duurgale Fiidow kaasoo garsoorka hortiisa ka qirtay in taariikhdu markay ahayd 17 bishii 3 2022 xilli habeen ah uu gacantiisa ku dilay marxuum Cabdi Abuukar Cismaan isla markaana uu ku dhuftay 5 baalood. markay dhageysatay markhaatiyaashii uu horkeenay xafiiska xiriiranta ciidamada qalabka sida garsoorka midna ay u dhuuxday marag furkooda markay dhageysatay baarihii dacwadda kaasoo sheegay in baaris dheer kadib ay u soo ifbaxday in eedeysane Cabdullaahi Xuseen Duurgale oo si bareer ah u dilay marxuum Cabdi Abuukar Cismaan oo dhex jiifay rugta booliska hanti wadaag ee degmada Jowhar. markay aragtay xaashida dhakhtarka ee caddeynta dhimashada sawirka marxuumka iyo qorigii uu eedeysanaha dilka ku geystay markay dhageysatay doodii qareenka oo ahayd in eedeysanaha sare ku xusan loo naxariista loona eego sifaalaha dembiga fududeeya maadaama uu qirtay dembiga uu galay. sidaas darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in eedeysana Cabdullaahi Xuseen Duurgale Fiidow uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo eedeeyay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dembiile Cabdullaahi Xuseen Duurgale Fiidow dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cabdi Abuukar Cismaan. ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamaddu waxaa u furan raacfaan. wabillahi tawfiiq. Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan Lakiba Soomaali Cable TV caasimad dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar.